murashaxa xildhibaanka bartamaha magaalada Tangaarisa Dr. Maxamed Cabdi Miyaamiya ayaa ka hadlay dooda xildhibaanada gobolkan Waqooyi Bari qaarkood ay ka keeneen hadal jeedintii sanadlaha ahayd oo uu madaxweynaha qaranka Dr. William Arab Samoei Ruto kaga hadlay xaaladda dalka waxa uu suura galay xukuumaddiisa iyo qorshayaasha horumarineed oo ay tiigsanayso. Dr. Miyaamiya ayaa ugu horreyn sheegay in wax lala yaabo ay tahay in mudanayaasha baarlamaanka ay dhaliilaan madaxweynaha yeelkeeda uu isagu qabo ama uu aaminsan yahay in si shaki la'aan ah uu madaxweyne Ruto shacabka gobolkan Waqooyi Bari uu u sameeyay shaqo ballanqaad muuqata wadata oo ay ku fashilmeen madaxdii hore ee dalka soo martay 60kii sano ee la soo dhaafay. maalmahan waxaa la isla dhexmarayay madaxweyne William Ruto oo khudbad jeediyay oo North Eastern la yiri dib u dhigay oo waxba fiican uma qabanin oo uu dayacay oo wadamada gobolada kale u horumariyay oo North Eastern uu gacan bidxiyay oo lagu haayaan arkay. marka aniga fikirkayga moonigayga hadii aan cabiro waxaan dhihi karaa madaxweynaha waxba mu halaynin dowladihii Kenya na soo mari jirayna dowladda noogu fiican waa dowladdan William Ruto. dowladda noogu fiican Soomaalida North Eastern markii la dhahaa Soomaalida North Eastern dowladdan William Ruto nooga fiican nama soo marin. tii Jomo Kenyatta, tii Moi, tii Kibaki, tii Uhuru, tan William Ruto markii la isu cabiro la isbarbar dhigo dowladdan William Ruto dowlad Soomaalida aga fiican oo furfuran oo wanaagsan oo kor u soo qaaday Soomaalida tan ka hor maan arkin. siyaasigan oo sii hadla ayaa dooda kala tilmaamay in mudanayaasha gobolka looga baahnaa in madaxweynaha ay si hoose ula fadhiistaan kalana hadlaan baahiyaha ka jira gobolka halkii ay ka caroon lahaayeen hadal jeedintiisa si la mid ah xildhibaanada gobolada kale maadaama ay iyagu yihiin matalayaasha shacabka Waqooyi Bari. laakiin hadda in madaxweynaha la eedeeyo oo la dhahaa North Eastern uu ka booday ani eedaas xagga madaxweynaha uma leexinay waxaan u leexinayaa dadka aan soo dooranay shacabka iyo madaxweynaha u dhaxeeya dadkaas ka seexday hawsha ka seexday madaxweynaha wixii loo geeyo qabtaa wixii loo geeyo ka hadlaa wixii loo geeyo ka jawaabaa meelaha uu hormariyo uu sheegi kulli dad baa jooga oo la soo doortay members of parliament ama qofka areadaas MB-ga ka eeba codsiga gudbiya dowladda u gudbiya. marka North Eastern hadii ay dib u dhacday ani waxaan dhihi karaa madaxweynaha ma ahe dadkii shacabka iyo madaxweynaha u dhaxeeyay baa ku seexday. tusaale ahaan North Eastern hadda jidkan weyn main road ka loo yaqaan Garissa iyo Wajeer iyo Mandera isku xira jidkaas ugu daran North Eastern marka la fiiriyo Mandera Wajir Garissa isku xira jidkan weyn jidkaas marka la fiiriyo saddex qayb baan u kala qaadaynaa qayb waa Mandera iyo Garissa dhexdooda Mandera iyo Wajeer dhexdooda Mandera iyo Wajeer dhexdooda dadkeeda u tashaday reer Mandera u tashadeen saddex meel markii loo dhigo laba meel waa laami wax yar baa u soo haray reer Mandera ceelwaq iyo carrada markaad soo marayso kulli waa laami waa wadadan weyn dowladda Kenya baana dhistay waa main road ka waa wadooyinka dowladda iska leedahay waa national government iska leh dadkooda reer Mandera u qaylasteen oo madaxweynaha u tageen oo ka codsadeen sidaas contractigooda loo geeyay shaqaalahooda loo geeyay way ka shaqeeyeen laamiya loo saaray jidkan weyn meesha ugu xun bay ahaan jirtay bariga hore Wajeer iyo Mandera dhexdooda dhul aad u xun oo aan la mari karin oo aad xilliyada roobabka loogu rafaaday ahaan jirtay hadda laamiya laga dhigay Garissa iyo Madoogaasha dhexdooda meesha ugu xun bay silcay ahaan jirtay waagi hore iyadana roob tif haduu dhaha aan la maraynin hadda laamiya laga dhigay yaa ka dhigay dowladda Kenya yaa u geeyay oo jidka inuu silacsan yahay u sheegay dadka laga soo doortay meesha waa markaan reality ka hadalna oo runta isu sheegno dadka laga soo doortaa u sheegay
wadadan Madoogaasho iyo Gaaris dhexdooda waa kan aad aragteen werweriq laamiga saaran yahay quruxdeeda. Dr. Miamia oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay in aysan cudurdaar noqon karin in laga hor hadlo xarunta baarlamaanka ee magaalada caasimadda ah ee Nairobi iyadoo la dhaliilaya hoggaanka qaranka waddanka. Marka meesha silacday ee urtay ee aad u rafaadsan waa Madoogaasho iyo Wajeer dhexdooda. Madoogaasho iyo Wajeer dhexdooda oo weligeed gaari iska rogo oo carro wada aan lagu gadinin, haddii lagu gadiyeyna meel iyo laba ah laami warkiisa dhaaf. Marka waxaan dhihi karnaa Madoogaasho iyo Wajeer dhexdooda rag baa laga soo doortaa, ragga laga soo doortaa ku seexday waxba yaan madaxweynaha la eedaynin. Ragga laga soo doorto yaa ku seexday runta markii laga hadlo. ninka la soo doorto xildhibaanka ama MP-ga ah xafiisaha asaga la rabaa inuu galo, xafiiska madaxweynaha galo, codsigiisa geesto, ka madaxweyne ku-xigeenka galo, qoraalkiisa iyo applicationkiisa hor dhigto, xafiiska wasiirada tago, baarlamaanka ka sheego, dhibka dadkiisa haysta asaga la rabaa inuu xafiisyaha dowladda ka sheega ee inuu mikrofon qaato oo banaanka istaago madaxweynihiisa eedeeyo. waa laga qurxan taas shaqadiisii buu gabay. marka inuu yani sidii shacabkii oo kala mudaharaadaya camal oo mikrofon intuu qaato oo banaanka istaaga ninka MP-ga lagama rabo sidaas. waa laga fiican yahay sidaa. xafiisyaha dowladda inuu galgalaa la rabay oo ku dhex wareegto oo dadka wax u soo saaro. waxaan madaxweynaha uu meel marinayo kulli waa wax la keenay, wax rag baa keenay oo u geeyay. waxa uu meel marinayo dhan rag baa u geystay.